waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo labada gole ee wasiirada iyo baarlamaanka wixii ka jooga hambalyo iyo salaan qaaliya iyo ducaba waxaan la wadaagayaa qoyskeena sharafta leh reer Mubaarak mudane Mubaarak iyo marwo raxma caaw waxaan leenahay reer Mubaarak baan gidigeen marti u nahay ardaaga reer Mubaarak baa caaw gidigeen wada joognaa reer barakaysan ilaahay inooga dhigo barakallahu lakuma wa baraka alaykum وجمع بينكما في خير sidoo kale waxaan u ducaynayaa oo iyagana oo hambalyeynaya reer Ahmed Jaan Dalmar oo isaguna halgamaa kala ah iyo marwadiisa marka waxaan leeyahay xaqiiqdii farxad weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galno munaasabadan xaqiiqdii intii dagaalka ka dambeysay waxa aad u badnaa aroosyada la ii keenay casuumadooda oo ay ku jireen qaarkood ismo iyo laakiin tanun baa ka soo qayb galay tanun baa ka soo qayb galay maxay ku tusinaysaa macnaha iyo qiimaha ay noo leedahay xafladani waxaan leenahay barakooba waxaan u mahad celinayaa Farduus Cali Shire iyo Xamda iyo inta la shaqeynaysay oo aad isugu hawlay raggeeni inoo halgamay oo dhaawac ahaa oo waliba dhaawacyada waaweyn qabay inay daryeelaan dadka u sheegaan macnaha ay leeyihiin gabdhahaana iyagana waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo waxaad ka arki doontaan insha Allah qoysaskiina iyo ilmihiina ka arki doontaan aad iyo aad baan idin salaamayaa oo u mahad celinayaa hambalyadaas ay ahayd waxaan rabaa inaan idhaahdo wiilasheenii dhintay ilaahay ha u naxariisto oo qabriga ha u nuuriyo ninkii ragga noolna sidii hore loo sheegay reer SSC oo dhan baa u daymaysan waxa aan sheegayna caawa halakan la leeyahay reerka waxaasan ka qayb qaadanaynaa wax u qalma ma aha wax ka weyn bay mudnaayeen laakiin wali halgankii baynu ku jirnaaye waa insha Allah waa hagaajinaynaa noloshoo dhan bay inagu leeyihiin inaynu wax kasta oo qaaliya uga hurno isaga iyo ragga kale ka dambeeyaba diyaar baan u nahay insha Allah dawladdu wixii ay ku darayso reerka dhisidiisa iyo kaalada waa kaaladii uunde kaaladii dhaqanka ahayd weeye reeraha lagu dhisi jiray marka reer kaalada waxay dawladdu ku darayso madaxweyne ku-xigeenka noo oranaya waa ka wada hadalnay madaxweynaha noo oranaya insha Allah tacaala wixii kaalada ah oo aan ku darayno geelay caawa ka socotay bay la tahay waa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.